بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda muslimiinta meel bay joogaan ee Soomaaliyeed waxaan leeyahay galab wanaagsan. waxaan rabaa walaalahayga Soomaaliyeed muslimiinta inaan la wadaago dhammaantiin sida aad xogaal u tihiin dhacdooyinka ka dhaca dalkeena Soomaaliya. dhacdadii ugu dambeysay Soomaalida ku runtii la yaab ku noqotay ee culimada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed runtii aad kaga dhidhiyaan waxay ahayd arrinkii ka dhacay baarlamaanka la horgeeyay ahaa foolxumada iyo zinada la rabay in lagu fasaxo, taas oo baarlamaanka Soomaaliyeed ay ka hor yimaadeen ay muujiyeen kaalinta ay ummadda Soomaaliyeed ay kaga jiraan iyo mas'uuliyadda ay qaadeen. aad baan runtii kaga mahad celinaynaa. hase yeeshee waxaan rabaa in idin la wadaago aqoon zamaanka markii la gaaro oo calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah in dad aan munaasab ku ahayn dadka qaar oo dadka mas'uuliyiinta noqonayo inay yihiin dad aan ku habboonayn. waxay ka dhigan tahay arrinta ayada inay tahay in lagu jiro aqoon zamaanka. waxaan rabaa xadiiskan idin la wadaago oo nabiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam. nin aantuu nabigu yimid wuxuu ku yiri rasuulka Ilaahayow, wuxuu yiri goorma ay saacada qiyaamaha dhacaysa rasuulka Ilaahayow. markaasuu nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam idaa diyat al-amaana fantadir as-saa'a. wuxuu ku yiri haddii amaanada la dayaco oo dadka amaanada ay dayacaan wuxuu yiri qiyaamaha waa la joogaa. markaas su'aalu sii wuxuu rasuulka Ilaahayow oo amaanada see loo dayacayaa. markaasuu nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam idaa wusida al-amru ilaa ghayri ahlihi fantadir as-saa'a. nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam haddaad aragto dadka talada oo aan dad aan mudnayn loo dhiibayo oo talinaya haddaad aragtid saacada qiyaamaha la joogaa. martaa waxay ka dhigan tahay dadka qaar ee aan runtii shariicada iyo diinta islaamka waxyaabo ay diiday ee xaaraantinimeysay maanta u sacyinaya u ordaya in la xalaaleeyo. dadka noocaas ayaa maanta dad soo xulanaya oo ay mas'uuliyiin u yihiin. taayada waa ayaan darro. taayada waxay ka dhigan tahay marka haddaad aragno talada muslimiinta ah iyo dad aan mudnayn marka ay talada loo dhiibo nabigu wuxuu ku talmay saacada qiyaamo ay tahay. waxyaabahan aan maqlayno waxay ka mid tahay foolxumada ah in saacadihii qiyaam calaamadihiis wax badan oo ka mid maanta la arkayo. marka waxaan ummadda Soomaaliyeed kaga digayaa maadaama hadda lagu jiro ay soo dhawdahay xilladii doorashooyinka la galayo oo maamul goboleedyada is diyaarinayaan oo federaalka soo kale isku diyaarinayo. waxaa muhiim dadka aan xulanayno ee aan mas'uuliyiin u dooranayno waa inaan ka fiirsanaad bay muhiimta. waa inay dad diin leh noqdaan, waa dad mabaadi iyo qiyam iyo akhlaaq leh noqdaan. waa muhiim. haddii taa la waayo waxaa dhacaya in dad iskaga qanacsan xataa gaalnimo haddii loo soo bandhigo iska raacayo ee wixii loo soo meeriyo iska soo qaadan haddaan meel geysano waxaad ogaataa innagana waa ku dambaabaynaa dembiga waa la qaybsanaynaa. marka dadkaas saas oo kale iyagana maanta waxay mudan yihiin inay maanta ay ka fiirsadaan. maxaa yeelay arrinta ayada dhacdadan waxay dhacdadan la yaab kale ee baarlamaanka Soomaaliya loo keenay waxyaabaha ay wax ka xum way iman doonaan. marka waxaa muhiim inaan hadda ka fooljignaan oo dadka aan soo xulanayno oo aan rabnaa mas'uuliyiin u dhiibano hadda waxaan ma joognaa xilli aan ka fiirsan karno. laakiin hadda odayaasha qaar ay u xushaan qofkii shilimaad haysta kaliya waxa la sii yiraahdo oo waxa la yiraahdo taa waxay dhuminaysaa islaamnimadeena iyo qiyamkii akhlaaqda muslimka ayaa halka ku baaba'aysa. marka waa inaan fiirnaa kaliya qofkee mudan, qofkee shariicada diinta ilaalin kara, mabaadi'da iyo qiyamka muslimiinta ilaalin kara. waa inaan wax u dhiiban waa muhiim. taa haddaan leeyin walaalayaal dhammaanteen waan ku dambaabi doonaa. dadka iyagana marka si ay kaga tooba keenaan arrimihii dhacay sida culimada Soomaaliyeed ay runtii baaq u direen in arrinta ayada ka waantowaan oo ay ka tooba keenaan. maxaa yeelay inaga Ilaahay wuxuuna sii diin Ilaahay uu soo dejiyay maantan uma baahna in wax lagu darno uma baahna in ku darid iyo ka jarid intaba diinta uma baahna. waa diin dhameystiran Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dhameystiray. marka cid waliba oo diinta weerar ku ah ee wax wal foolxumo soo dhexgelinaysan inaan dhammaanteen ka hortagnaa. taayada waa waajib dhammaanteen saaran, qof walba musliman ay saaranta. marka waxaa muhiim ah aan ka waantowno dadka aan meelaha qaar aan geynayno
inaan iska fiirno waa muhiim laakiin hadaa tiraahdo meel dalkaas wax ku soo bartay halkaasuu ka yimaaday waxa ayada ayaanan u fiirin qofkeen mudan ee wax u dhiiban inaan ka fiirin inaan iska ilaalino jazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu